السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو جنرالكيغا عن بيتا إيسا هدي أصحابتي هور كمي تاهي مهسان هدان وقعصب تاهينا welcome. هورتا هذا الكانو دنبايا let me get some energy. Hi guys! Hello, halkani waa kanaalkii Canabi Sweetie. Finally maanta soo qabtinay joog. Norway waa la isla joogaa la ismana arko. Dadka in la isku soo dhago baa hare hadda ma soo imaanay. Vlog yar maanta iska baashaala raaxeesi ah. Kafeegaaga hore u soo qaado. Cuntadaada iskaga dhardhag meelaha iska marmar. Yes. Stay tuned. Waxa soo socda nal socda. waxaa imaanay Vigeland Park irido weyn hadda ka galeynaa marka la socda meesha aad u weyn tahay mugdi way horta وأركي دونتين قدها وسيجلنا لكن حلو مقع درين كا أو تسنجري ماشان جوستا فيجلان على ده مجلسة sida ugu qofka badan bay canab idin ku duubeysaa idin hagar bixisa idin kana dehe daawashada iyo subscribe-ka la dhaca على داركو ماشان واحد تسنجري جوستا فيجلان أول شيء 1869 wuxuuna dhintay 1943 meeshan wuxuu geliyay waqti badan sanado badan meeshan waxay qaadatay 40 sano in design-keeda in la sameeyo after nasiib daro uu dhintay waa ka xumahay meeshan sida ugu dhex lugeynayo uma ugu dhex lugeynin Vigeland laakiin dreamkiisi way u rumowday guys weli gudaha ma u sii gelin meesha ugu horeysa iska joognaa wax badan aan noo haray waxaa sii aadaynaa ilaa hore meelaha historyga iyo waxyaabaha maaragtay artistkan representeereynayo ka sheekeynayna soo waa nala sii socon doontiin أنا فاتو حق صعبتها ويل يريس عانة عان دلي ويل كيريس كعان يا بس كجفور كيسوا معي عبس مقعيس تلو سقط كويا كاتار ولا شقة إسكوليدين واي شقة يا شقة شقة إسكوليدين The Angry Boy cinnamon وويلكي حناقسناي ويل يروح حناقسن ويا نهار عري ويجي هذا هاي نينك ماشي هرت أو صورة ما عرفته waxay ku qaadatay inuu waxa design garay 40 sano bismillah waa cimrigiisii dhanay ninka markuu dhintay kadib design kan meesha ugu badan oo dhaqaalaha meelaha ugu badan dalka touristiga oo dhaqaalaha soo gal Norway-na sawiradan muxuu u sameeyay markuu xaso sawiro kala duwan mid qaawan mid la dilaayo mid gabar oo kor loo qaadayo mid aragto architecture maxaa dhahay waxyaabaha sameeyo ma aragtay
وادب بس كحكل كنت مين إني ليه صورنا سكاكا ودك أم لا نقاوي مين كدوبن صوابا كجرها هذا waxaan qaaqaanin kasdana weyn oo qaawan culays buutunka ku wada macna ليش ما عرفت ليش أنا قاعد يريس بستريجي سوار بيوي مالين ها في كان في هاي ما شاء الله والله وفكرة waxa weeyaan inaba caadi ahayn laakiin sababa ku jira hatta cunug yar oo kala gabar weeyaan laakiin cunug kala halkan weeyaan wuxuu agtaa xoogoo yariisa gabadha si u taagan tahay oo kala ma aragtay lost wax ka lumeen like I don't know gabar wax weeyday u agtaa gabadhan adan hor sawir walba waxba ku jira mid waxba xambaarsan waa dadkii hore adisay ahaayeen waa dadkii hore say ahaayeen waliba dagaal iyo adduunkii undergarden skriigi soo marino laakiin waxaan ka helay beertay u dhiseen gareeyeen aad bay u qurux badan tahay runtii meeshaan tireeraga inaba caadi ma hore aadayna meesha oo dad maaragtay ugu daran hore sii jirtaa oo maxaa la dhahay dadka maaragtay saas iskugu walaalayaal hab isiiya ما يحبس يا أنا ما حبس يا ما حلا ده قبل ما ركت تيك توك والله ما حبس سينين حلا قبل حواي ديبريشن كده سكوا دعائي وحيابا سو هو يهيلون بعد وحاسك هذا الشيء مركز واحد هذا واحد بروبلم كده ما ركت وأنا واحد سايكولوجي هنصحي موقتها وإن خف إنا خبسيسة الله marka yara ku dhagtid wax badan ka degay taas been ma aha ana jidyar ma taabo si kale bir waraab igu dambeysay goorma igu dambeysay goorma hab igu dambeysay wallahi wax hab isiyo ma arkaba sabadan tinteed mu eko kirani حتى حلاقيها أفريقيا إني كتير صورة أنا حلاقيها ما هن بس عدان كليا ما oh my god this bit حدها تاسكت والله ماشان إنه بعادي معها صور كاس بيقول إيجها كركاس نيجوا كلامتي نحو إيجها قف إيه وح بحل ها وحيوان حيوان كشرط له هو إيجها ها حيوان ويا بدك كتير صح haddeertaana waxaa sii aadeena gudaha weli ma dhawin soo let's go meesha aad u weyn tahay wareega galnay soo gudaha warmsiga ilaa hawl makaraye waxal habayaraate anigu haatan leeyahay haddaynan sinaanayn inaa kala horeysa هدينا الفنانين إنا
كورن ماشان ناجو والله جوجا meeshaan waa markii ugu horeysay wax ku imaado meeshaan ana baan ay keento madaxaaga ilaahay ka shubo runtii aad baa uga helay waa meel ku fiican shuxshuux yara romantic laakiin ani ana weeyaa laba gabdhood doo socdo meesha laba qof loo yimid laakiin alxamdulillah anaga isku quusaanayna sabashaaleyno maalinta gabdhaha weeyaan maanta aniga adduunka waxa uu jeclahay ma aragtay girls halday girls day أنا حساكيلا لكن والله ناجو أصلا مدقنا waxay dhahdaa aniga meeshan buuqeeda aniga waxa ka imaada xaafada taajiriinta magaalada dhinac kale ka deganahay asoo u dhaw waxa u jira soo tarin yar iska soo qaataa 20 daqiiqo jab waa imaada laakiin maantay markii ugu horeysay meeshan imaado runtii waa ka helay ma isdeen asla meeshan qurux badan ku taalo waayo حتى بيجنا لو سمع سنكرا أنت على فوق على سنكرا أنا يا مار وسي باشارنا إلا على جاري دونا وحواي مجال هذا ما أركتي أصله قبل يدين جوكته واتنا مو جديد وأنا قبل ما جوكته بس والله يعني واحد يشيل واحد دوبه إشال كابت إلا مركي يوتيوب لقى مقنع إشال نص أنا قرت ناجو ما أركتي أنا هرت ورئيسي محل هاي motivational interview جاني maanta naajo noogu martiqaadan waxa waaye wax badan soo socdo su'aalo badan ma aragtay oo naajo horta bariyaha intee ka baxday iyo waxyaabo badan isweydiinaya jiro so stay tuned aan ku dhahayaa meeshaan inta ma aragtay midka ku xigo anigu noqon doona insha Allah soo hadeertan qoraxda ka faa'iideysanayna wayba dhacdaybo that's life in Norway qoraxda waa la bursadaa wadankan so ومحاسي آذينا كرة آذينا وحبضنا وحاوتسنا فيلي انتريسنا horta maxaa asaas la isku qorsaar talo bariga hor meesas isku dul saarnaa dad midag maxaa qaaqaawi dhar la'aan ma hays كثير ku duugan ninka maartay digalaan annaga soo baarin waxaan maahan ina aqoon lahay dadka horta hadda jiro ma aragtay wax ma laga faa'iido dadka hore ma aragtay wax badan ay lahaayeen waxa ku duugneed soo xawaa ma taqaana gabadhan dadka hore ka haftay wax badan dalabkiina ka faa'iidey ana biswiiti maxaa ku daba dhigay ana biita magac macaan ay jeclaatay biswiiti waxaan waxa ku dhigi jiro ma taqaana qofkan almeela ku arkay I think 150 sano ka hor inaan la kulmay horta waan runo waxaas waa maqlay waxa la ruuxda bilaadanka inta la sameeynin bay isla soo joogeen saasa maqlay ani waa aaminsanahay maybe ina vigilance is aqoon jirnay bari ha laga yaabee ruuxdiina isla joogi jirta designka ninkan is so amazing aniga maaragtay oo iga yaabiyay waxyaabaha oo meeshan uu ku soo bandhigi karo waxa kamid ah xiriirada maaragtay ka dhaxeeya wax kasto all shapes of soo bandhigay sida hadda inta kale waxa ku arkaysin dad qaqaawan dad waxa ku arkaysin xiriirka ka dhaxeeyo maxaa la dhahaayay family xiriirka ka dhaxeeyo hooyo ilmaheeda xiriirka ka dhaxeeyo walaalaha xiriirka ka dhaxeeyo nin iyo naag xiriirka ka dhaxeeyo everybody waxyaabaha ugu sii daran xataa maaragtay xiriiro kale maaragtay oo rabin inaan sheego xataa meesha waa ku arkay mise ku qabanin soo duubin so waqtigaas maaragtay uu sawirayay waa waqtigii maaragtay dagaalkii labaad adduunka agteeda waayo so waqti waxaan disan gareynaya ka wadaa waqtigaas maaragtay waxay ahayd waqti oo adag maybe ay soo mareen hadda dadkan fight gareynayo kale ilmahan fight gareynayo wax emotionka dadka ku soo bandhigay somehow aan dhihi karnaa sida the angry boy oo kale hadda ay soo arkaynay maxaa la dhahaayay waxyaabo badan oo hadda waxaa jirta uu ka tagtago oo soo duubin marka wax kasta wuxuu soo bandhigay
dareenka waxay aaminsanahay dadka I don't know wax ugu adag adduunka maaragtay oo la tolkeeyo mise maxaa la dhahay la sharaxo waxaa waaye artiska maxaa dhacay dadka maaragtay architectureka dadka waxyaabahan sameeyo waa dad maaragtay maskax badan wuxuudan maaragtay in la fahmoba way adag tahay somehow so aniga mucjiso ee ila leedahay adiga see u aragtaa way qaaweyn iyo dembi waayo ma u aragtaa mise waxaa u aragtaa macno kilaa ku jiro horta wadankan meesha ugu badan adduunka oo dhaqaalaha kasoo galo waxyaabaha ugu badan meelo badan dhaqaale kasoo galaa laakiin ninkan wadanka wax maxaa dhahay uu u qabtay tuuristayaasha kale meeshaan oo kale way imaadaan diyaarada soo goosanaya wadanka qarash soo gelinaya inkasta oo meeshaan ay tahay free 24 hours is open adiga waqtigaa rabti imaw winter summer autumn waqtigaa rabti imaw laakiin waxaa waaye free laakiin wadanka qofka markuu tourist imaado oo meelahan kale imaanayo waxaa laga yaabaa dad intay arkaan meeshaan inay ka helaan usoo goostaan tigid darteeda inay meesha imaadaan so hore usii galina waa sii wadeena waxyaabaha oo noogu yaabka badan hayse ujeediin habeenay noqotay meeshaan waa ka tegi weynay meeshaan aaday u weyn tahay hadaa rabta ma garden badan ay leedahay picnic oo sameyso iska galowga tiirarku aad hadaa historiga waxyaabahaas xiisaysid iyo artiskan waxyaabahan waxyaabo badan oo imaan kartaa meeshaan asxaabta meeshaan leeday noqotay saacadana caawa ku gaarnay aniga iyo naajusa u sheekeysanayna jawigaan meesha maaragta quruxda badan wallahi meesha u qurux badneed wallahi so waxa waaye
jawi degan marka xaggaana fadhoogeena kusoo gabagabaynaynaa waxaa xigi doono waxaa waaye programka xiisaha badnaa ee motivational interviewga iyo naaji caraale intaa iftiin maasha allah waxaan leenahay falow qurux badan ee walaacana maanta idin duubtay way idin hagar baxday meel qurux badan ayaan li keenay idinkana subscribe-ta iyo daawashada noogu dadaala like saar markasta waxaa dhahay mataqaanaa aniga meel qurux badan idin geeya meel indhaha u roona idin geeya dhahay meel qalbiga dejiso yaa soo adiga qalbigaaga iyo maskaxdaada meesha la aadaysa aday ku qusaysaa meel walba uu badan yahay qof walba wuxuu ka helo daawan laakiin jawigan qurux badan ha dhaafin anigu leeyahay marka aniga ku xirno sidaas nabadgeliyo amaana allah